dunida daafeeda waxaa ku yaala masaajido magac iyo maqaam sare ku dhex leh qalbiyada muslimiinta. waxaa jira 3 masjid Allah subhanahu wa ta'ala khusuusiyad gaar ah siiyay, waxaanay kala yihiin Kacbada oo ku yaala magaalada Makka, masjidka Nabiga oo ku yaala magaalada Madiina, iyo Masjid al-Aqsa oo ku yaala Falastiin gaar ahaan magaalada Qudus. Salaada waa tiirka labaad ee 5 tiir Islaamka, waana laf-dhabarka diinta. Salaada waa cibaadada ugu weyn Allah subhanahu wa ta'ala loogu dhawaado, waana xiriirka u dhaxeeya Allah iyo adduunkiisa. camalka ugu horeeya ee laga xisaabiyo addoonka maalinta qiyaame waa salaada. sida awgeed daawade salaada aan wada ilaalino oo wada oogno. haddaba daawadaha sharafta leh wax ka ogow 10 wadan ay ku yaalaan masaajidada ugu badan. ku soo dhawow xikmaso. magacayga waa Jaabir Cusmaan. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro like saar. mahadsanid. wadankeena 10aad Yemen waxaa ku yaala 50,000 oo masaajid. wadankeena 9aad Morocco waxaa ku yaala 52,000 oo masaajid. wadankeena 8aad Iran waxaa ku yaalaan 58,000 oo masaajid. wadankeena 7aad Turki waxaa ku yaalaan 82,000 oo masaajid. wadankeena 6aad Sacuudi waxaa ku yaala 98,000 oo masaajid. wadankeena 5aad Masar waxaa ku yaalaan 110,000 oo masaajid. wadankeena 4aad Pakistan waxaa ku yaala 120,000 oo masaajid. wadankeena 3aad Bangladesh waxaa ku yaalaan 250,000 oo masaajid. wadankeena 2aad Hindi waxaa ku yaalaan 300,000 oo masaajid. nambarkeena 1aad Indonesia waa wadanka tirada ugu badan masaajidada ku yaalaan, waxa ay gaarayaan 800,000 oo masaajid. aad ayaa u mahadsan tahay intaan hadda nala soo gaartay. waxaan rajeynayaa inaad wax ka faa'iiday. muuqaalkiina quruxda badnaa halkaas ayuu ku egyahay. muuqaalkan la ciinaa intaan ku kulmi doono. waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo. amaano Allah.